xubin baa ku jirta jirka bini aadanka hadday hagaagto jirkoo dhan baa hagaagi hadday ba'naatana jirkoo dhan baa ba'naan taasina waa qalbiga buu nebigu yidhi hadduu qalbigu hagaago qalbigu muxuu ku hagaagayaa waa ilaahay macrifadiisa hadday qalbiga macrifada ilaahay ay degto xubnaha bini aadanku waxay noqonayaan xubna marna ilaahay aan cisyaankiisa ku dhacay marna ilaahay inay caasiyaan way adkaan maadaama xubintaasi maanta ay bukootay indhaheenni waxay rabaan bay eegayaan dhagaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabna ku bixinaynaa hadalkeennii meeshaan waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doon xasan albasri raximahullah ayaa yidhi 30 sano maan qoslin 40 sanana maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuuga aan isku malaynayay waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkiisa taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadalkaa leh 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sidaa hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baa ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka dugsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisa addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday oo addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo aad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiiso baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baa anu igu soo celinay war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay hada macna addoonku macnihiis waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotana kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay
dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahay hay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyay ana ka buuxiyay hay naga buuxa dadkan soo socdoona waa wada bulaacad socota ilaahay baa nasakhiray mooyaan waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biyo ka buuxa waxa bini aadamku ay haystaan maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigaya horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 sano waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoon baad haddaad 60 sano adduunyada aad joogtid aad ku noolaatid addoonnimo maalintaad naftu ay kaa dhacdeed ka baxda adduunyada adiga waxaa ku bilaamaysa xorriyad baa ku bilaamaysa xorriyad nin saalixiinta ka mid a kaana yasuuma annahaar wa yaquuma alleyl sakaraadkii markuu qabtay buu qosol bilaabay nin xanuunsanoo qoslay ka warran sakaraad markaas marka waasic ma saacadan aad hadlaysaa baa lagu yidhi ma saacadan aad kaftamaysaa oo qoslaysaa wuxuu yidhi ohin anu waan dhammaystay buu yidhi maanta laga bilaabaa farxadda ay bilaamaysa ibnu cabbaas radia allahu canhuma nacashkiisa markii lagu qaaday qabrigii la geliyey haatif waxaa la maqlay aayadda qur-aanka ku celcelinaya yaa ayatuha annafsu almutma'inna irjicii ilaa rabbika raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii waayo 9 sano ama dhowr iyo 80 sano waxa ku dhamaystay oohin buu ku dhamaystay noloshiisa maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda cilmiga baro maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda wax baro maruu isagu ilaahay la munaajoodo iyo maruu dadku sida ilaahay u baryaan oo u sheego noloshiisa oo wuxuu ku dhamaystay bayna cibaadatin wa cilmin wa dacwatin buu ku dhamaystay marka 60 sano 70 sano ilaahayna siiyey waxa laynoo keenay adduunyada walaalayaal inaan ilaahay jalla wacala aan kula baayac mushtariin khulayd bin cabdillaahi baa yidhi muuminka 3 meelood in laga waayo maaha 3 meelood un baad leedahay masjidun yacmuruhu wa baytun yasturuhu wa xaajatin laa ba'sa biha buu 3daa ayaa qofka muuminka la dooni wakhtigiisa inuu ku bixiyo masaajid uu camiraayo mar salaad buu ku tukanayaa mar qur'aan buu ku akhrisanayaa mar cilmigu culimmada ka baranaya mar dadka muslimiinta bilaa salaadee dayacan ayuu u fikirayaa intuu ziyaarto ayuu masaajidkii culimmada iyo cilmiga iyo khayrku ugu yeedhayaa wa baytun yasturuhu qofka muuminka meesha saddexaadee la doon in loogu yimaado aqalkaaga wakhtigaaga ku bixiyo ciyaalkaaga islaantaada la fadhiiso asxaabta rasuulku masjidka markay joogaanna arday bay ahaayeen guryahooga markay togaanna mucallimiin bay ahaayeen mujtamaca kale markay dhex socdaanna muballiqiin bay ahaayeen difaaca diinta markii loogu yeedhana mujaahidiin bay ahaayeen masjidka markay joogaan arday abubakar baa wax baranaya oo cumar baa baranaya oo cali baa baranaya oo cuthmaan baa baranaya tacliim wa tacallum rasuulkay ka baranayaan calayhi salaatu wasalaam marna dhexdooday isbaran iyo isbarayaan markay guryahooga tagaanna waa maxay waa mucallimiin weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa ilaahay nebiga rumeeyeyow reerihiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi cali ibn abi aalib wuxuu ku fasiray waa reerkiina diinta bara weeyaan macluum madarasad iyo malcaamad iyo jaamacad magaalada madiine cahdiga may lahayn nin kastoo saxaabiya aayadda qur-aanka iyo qowlka uu nebiga ka soo maqlo ayuu habeenka reerkiisa ula tegay oo reerkiisa barayay markaasaa mar keliya iyo ciyaalkii iyo dumarkii iyo raggii waxay noqdeen bad cilmigoogu meel keliya wada socdo oo cibaadada meel keliya ka wada socda oo diinta meel keliya ka wada socda oo fahmiga diinta meel keliya ka wada taagan mujtamaca waxay noqdeen
hadday 500 nin oo martiya maanta masjidka nabi maxamed ay timaado meeshii lagu marti qaadayna waa diyaar aqalladii diinta lagu barayna waa diyaar mujtamac cajiib oo yaa mujtamac guryahooga markay tagaana mucallimiin bay noqonayeen mar aliya markay dadka kale u tagaana muballighiin alladhiina yuballighuuna risaalaati allahi bay noqonayeen difaaca addiini walwatan diinta markay noqoto difaaceegana mujaahidiin bay ahaayeen bilmaali wannafs naftoodii maalkooga diinta ilahay ku difaacayeen